الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا سلام يا رب مركز رسول مالي ملك ستيت وكتب لي الدرجة هذا جاكو تريكوتين مقالة وين مقالينا wax wara oo cad oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu amba ay soo saartay amba xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay soo saartay anigu ma arag oo xaqiiqo ah hadalkaas uu baa suuqa soo galay waxaana laga yaabaa in cilad farsamo ay uga hari karto oo maamulkiisa curdina oo aan kooxda u diyaar gareysteen oo aan diyaar garow soo marin waxyaabo kasta oo dhici kartaa لكن أنا أقول شخصيا عاقل عبد العمر هان يرسل وقوية أو عيار يساعد يعد إن الأركان أتشعلا وأنا نسيب ديار جروب يري كاربون خيارات كل حيثو عارف فريستون حلقة صوت غيره وأنا أعرف الشيء يجي مركا عاقل وزارة إلا يهدى ورلق مهلين وهرون وأنا اسكو دينا إن وزيرتي way maqan tahay inaan helno agaasimaha guud kumanaan guuleysan warar baa sheegaya in mas'uuliyiin dawladda sarsare oo dawladda ku jira oo Somaliland ka soo jeeda inay joojiyeen arinta ayada maxaad u rookaysaa yoortaas arrinkaas hadday dhacdo waxa dil siyaasadeed ku tahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo saamiga ku mataliya xukuumadda ninka ugu sareeya ah ninka la hadalhaya la xamanay leeyahay joojiyay anigu baa hadalhaynta oo iga soo duulay inuu leeyahay khaatuban maamul goboleedyadii ka saaray waa Saalax Axmed Jaamac oo ku xigeenna ra'iisul wasaaruhu hadduu joogo sharci male saxiix male shaqana male ra'iisul wasaaruhu hadduu socdaal ku jiro oo maqan yahay ka Allahu a'lam markaasuu saxiix leeyahay لكن كي هوشان ودي رئيس الوزراء مدحوينها يسقوا بقى كل واقع وسيركيس أخدمها جودها الفدراليشن كده وشيسين كشرع قولا مع القبلات الحكومة وأنت صوت كهرلي مدحوينه كهرلي مقالها السيء سيدا وين الله بالله سومالي لأني أوجد ذلك يدرك من سومالي كم غلا الصقر على الصومالي لقيت تاجي maanta in qof Soomaaliyeed oo Soomaali kala goynaya hadalkooda loo maqlaa si daro waxaan u maleynayaa geeridii siyaasadeed Xamse Cabdi Barre inay tahay hadii arrinkaas xaqiiqo ay noqoto xogaha soo baxaya way tiro badan yihiin mar waxa la leeyahay warqad ka soo baxday walow si official loo hayn si dhab ah aan loo ogeyn laakiin xuraanku waxa la sheegayaa in ay jiraan عقبات السياسات أو مروا البكسر عدا ذات مسؤولين تسرع حكومة الفدرالية الصومالية ما لديه كلام مركا رجل وزراء كأنك تشوفي أرنتان سياسة ورقتادو يهوتني وح أيام دفعة في المركا هراء إنه قصدين كنا قارن عم بالشرعية الدستورية نيتاي في الوزراء كحيلين أود له مرحدي في الوزراء هم ماشي تاجي هاي أو طالع ترجعين كرا أدون كسمتشرو رئيس الوزراء كحيجين هو وزير كحيجين كقديش محمد ديريني كقول كحيجو قلة حلا معها إحنا ماله شقر إيه سامينا ماله مركا رئيس الوزراء هو ودن كحمسة عبد برا أو تاجن لينكي أو مجعلبا استراتيجي وكل شيء مدحوينها السجوا ولبا وحبيبا فربنا أي بيشو حمسة كصوت رئيس الوزراء على أي كرسنا يساعد تبتو بس كاسنا بس صوماليات أي أحد عالم يأذون كلنا عارفين كوب قاعدين الصوماليين لما ده وحي خلانا أي ku taageereen Xamse iyo Xasan ba maanta hadana in Yurub ku xigeenah ayaa ka jaray oo ka joojiyay oo laga aqbalay waa ayaan dalka ku dhacaysa dalku markaa wuxuu tilmaamaysaa inaanu mas'uuliyad cid laga xisaabtami karaysa ay jirin waxaan ku sheegayaa Saalax sanatar buu ahaa loo soo dhaariyay shan jeer baa markii hore xildhibaannimada markii wasiirka loo dhaariyay sanatarka markuu tasoo kitaab maray ra'iisul wasaare ku xigeenka kitaab gacan soo saaray midnimadii wada jirka iyo Soomaalinimadu ku dhaaranayay marka inuu isagu maanta yiraahdo gobolada waqooyi Soomaaliya kama tirsana isagoo u qaatay oo siyaasiyiin matalayay gaar ahaan
goboladan horumarkoodii maanta soomaalimadu ay gaadhay inay ka soo jeedo nin sool iyo sanaag iyo cayn ka tirsana maanta inuu dadkii soomaalinimada iyo horumarka ka hor istaago oo dawladnimadii uu ku matalayay uu idaa kama tirsano waa ayaan daro anigu arrinkaasi haddii caddaato waxaan leeyahay ninka aan leeyahay iscasil oo kursiga reerka u banee waa xamse cabdi barre waa gartay ka soo jeeda baan ahay oo aan la hayb ahayn firdiye iyo garaadkaada garaad cali waxaanay gobolka sogdhay baa ka soo jeedaa soomaalinimadaan ogolahay waxaan la yaabanahay qofkuba haddii dawladnimadii iyo dalkii kala sharayo dee in maxkamad la saaraaba ahayd dastuuriyo sharciga la mariyo in iyadoo Facebook wax meel ku qoro al-shabaab amaanay baa la xidhay la daldalayay haddii ninka dhan ee dalkii dhammaa ee Soomaaliya kala goynayeen inta soo gobol Soomaaliya ma la daynayo xilkii siyaasi ku yahay ayaan dalka ku haysay waa tahay caaqil marka dhalinyarada sportiska haddii ay caddaato in la joojiyey maxay saameyn oo ku yeelan kartaa siyaasadda dalka maxayse qaatumo u muuqan kartaa marka maamul goboleedkii dhawaan la aqoonsaday ee dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsatay horta marka hore waaligii kuu sheegayo kuuriniyo cilo farsamaan dhici karta Soomaalidu had iyo jeer waxyaabo fara badan baa la isdhex jeedsiiyaa anigu yana nin saalax gobol amba uu masalayaan ahay matalaada beenta ah meeshana xogogaal oo ah saalax axmed jaamac nin awoodaha caynkaas laga aqbalayo anigu kumaan ogeyn beel ahaanna dad siyaasadda dadka masalaya oo ay rabtaan ma ahayn awood ahaanna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha nin u dhuun daloola oo dadkiisa wata inaan ahayn way ogaayeen markaa nin aan ka filayo inuu authority baawarka intaa leeyahay maaha marka u malayn maayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aynu arkaynay oo laha doorasho wanfooda baa rabaa dadku kahaysta waangeliyaan cod shacab baan doonayaa maanta sool iyo sanaag iyo ceelka codkeeda u diyaar ahaa inuu oranayo saalax oo aan deegaan doorashada ahayn maanta gobolkiisa iyo dadkiisana aanay ogolayn dadku matalayana aan cod ka helayn inuu maanta 4 milyan oo laascaalad iyo buuhul yaalla iyo sool iyo sanaag ee cayn yaalla inuu qof halkan fadhiyo uga tagayo anigu u malayn maayo waxaa dhici karta sidan kuu sheegay baa haddii aan anigu inkastoo aan ka cudur daaranayo oo dadka ciyaaraha iyo waxyaabaha u dhunta daloola aanan ahayn hadday imika wasaaradaha kala ahaan lahayd waxyaaba badan oo xoga aan ka heli lahaa waxaan leeyahay macquul ilama aha saalax baa baasiyey oo hadalkiisii la qaatay oo Soomaaliya maanta xasan sheekh maxamuud iyo xamsa ay ku qanceen inay Soomaaliya kaaskaraan ولنا سولي سنة يعني معمول كي اعترافين عالم كوشيجين دقالها كوبيين سولو ويين وده هذا الشيء وانت في الصومالي ولنا كل اعترافين واللي بتفر بدن وحكومة الجلالة أي كتاجرين صومالي ما ده أول أنا أقول إسماعيلي وحساس وتجلي كرا واقف عاقل مركز الفصل وضع ولا كرتا معمولكو يهدو عرضناها معمول دجال كسو baxay buu ahaa abaabul faarsiinayay oo may dhisnayn haybihi sportska ciyaaraha oo may diyaar gareysnayn waxa laga yaabaa cilad farsamo diyaar garow la'aan xagga waqtiga inay dhacdo oo la jaan qaadi kari waayo Puntland galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland sideen ognahay Puntland waa ka maqan tahay Soomaha dhalinyarada sportska ciyaaraha ku ciyaaraya markii hore intaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdullaahi deni waa PC hoose ay imaaraadka ugu kulmeen wada hadallo hordhaca oo heshiis la maqlay lagu dhexdhexaadiyay imaaraadka markii hore waxay noqdeen inay Puntland qaadacday dhammaan xaq xidhiidh iyo xidhiidh dowladda federaalka ah waa tahay ugu dambeyn marka caaqil maxaa la gudboon baad leedahay dadka taageersanaa dhalinyarada sportska iyo waliba aragtidooda iyo bulshada guud ahaan SSC niyo horta SSC iyo dadka SSC waa dad Soomaaliya Soomaalida ay u halgamayeen
soomaaliya oo mid bay usoo dhinteen iyagu mood iyo maal iyo nafba waxay u halgameen in caalanka soomaaliya iyo ciidda soomaaliyeed ay mid ahaato madaxweyne dowladii federaalka ee mas-uuliyadda ka ahaydna way isku afkarteen maanta waxaan u malaynayaa dowladdana waktigeedu waxa u harsanay ay 2 sano iyo bila tahay inaanay haddii ay heshiisa ay la gashay dana kaloo siyaasadeed eegtay waxaan u malay inaanay waxba u noqonaynin kalena waa un wax hadda xukuumadda joogta ceeb ku ahaanaysa waxaanan u malaynayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu maamul goboleedada iyo hawsheeda ma qaabilsano iyo ciyaaraha mooyaane wasiir axmed macalin fake in badan buu si faahfaahsan uga hadlay oo cad wasaaradda arrimaha gudaha ayaanay shaqadeeda ahayd mar haddaanay wasaaradii shaqada ee maamul goboleedka iyo xuduudiyiinta dalka aanay ciyaaruhu aanay ahayn oo ay tahay wasaarad farsamo oo hawlo gaara qaabilsan lama oran karo waa laga noqday mar haddaynaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirkii warfaafinta oo afayeenka xukuumadda midna aan laga maqal waad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa caaqil cabdi cumar axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriirnay kana wareysanayay arrinta dhalinyarada sportska khaatumo oo laga reebay ciyaarihii sida wararka lagu soo gaaraya